عاشا سيلفيا روماني ayaa waxay bixisay wareysigeedu ugu horeeyay tan iyo intii ay qaadatay diinta xaq ah ee Islaamka. Gabadhan oo u dhalatay dalka Talyaaniga ayaa waxa bishii November ee sanadkii 2018 laga afduubtay gudaha wadanka Kenya, waxaana la aaminsan yahay in kooxda Al-Shabaab ay ku haysteen gudaha wadanka Soomaaliya. Waxa la soo daayay bartamihii bishii May ee sanadkan 2020 isla markaana waxay dib ugu noqotay dalka Talyaaniga. diyaarad gaar ah ayaa waxay ka qaaday magaalada Muqdisho ee caasimadda wadanka Soomaaliya. Diyaaradaas oo ku dejisay magaalada Roma ee caasimadda wadanka Talyaaniga. Caasha Romano waxay sheegtay in koorintaan la afduubin ay ka duwaneed sida hadda ay tahay isla markaana aan wax xiriir ka dhaxaynin Alle subxaanahu wa ta'ala iyo iyada. waxay sheegtay in markii hore ay fikir khaldan ka haysatay diinta Islaamka oo markay aragto dad xiran dharka lagu yaqaano dadka muslimiinta ay u arki jirtay inay yihiin dad la caburinayo. waxayna intaa ku dartay inay khalalaad badan ka aaminsanay diinta Islaamka, balse hadda waxa laga caawiyay inay wax badan ka fahanto muslimadu waxay tahay oo waxay xustay inay ahayd jaahilnimada haysatay isla markaana iska indhatirisay diinta Islaamka. waxay sheegtay inay deegaanka markay ku sugnayd Chakama ee dalka Kenya waxay tiri dad badan oo muslimiina ayaa waxay ku sugnaayeen deegaankaasi halkaas isla markaana